ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaas oo u dhaxeeyay xarakada Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya oo garabsanaya kuwa amisoon. xukuumadda dalka Liibiya ayaa ku dhawaaqday xabad joojin iyadoo sheegtay inay hakinayso weerarada ka dhanka ah mucaaradka ka soo horjeeda xukuumadda Qadaafi. intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararka imika hadda noo diyaar garoobay iyaga oo faahfaahsan. marwada koowaad madaxweynaha Soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay 32 haweena oo dhameystay cilmiga umulisooyinka. faahfaahinta warkaasi waxa inoo haya oo xafladaasi nooga qayb galay wariyahayaga Cabdirashiid Caynte. munaasabad ballaaran oo si heersare loo soo agaasimay waxa ka soo qayb gashay marwada koowaad ee madaxweynaha Soomaaliland wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka mas'uuliyiinta socota ururka kalkaaliyaasha caafimaadka Soomaaliland iyo marti sharaf kale. ugu hore waxa munaasabadaasi ka hadlay maamulaha dugsiga maxadka culumta caafimaadka Hargeysa Dr. Axmed Maxamed Diiriye ayaa sheegay in 32 umulisooyin ay barteen hal sano kuwaas oo aqoon hufan u bartay. waxaan aad ugu weynahay hadii wadaadka ilmo nala qabto insha Allah taala in ay dadka aad u tagi doonaan oo yaran doonaan waliba ay aad u caawin doonaan ayo dadka aad u shaqeeya. Asiya Usman oo ah mas'uulka hay'adda caafimaadka WHO oo qaabilsan Soomaaliland ayaa tilmaantay in 32 umulisooyin ay wax u barteen dadkooga iyo dalkoogaba loona baahan yahay inay wax u qabtaan hooyooyinkooga. gudoomiyaha ururka kalkaaliyaasha caafimaadka Soomaaliland Marwo Foosiye Maxamed Ismaaciil oo iyaduna ka hadashay munaasabadaasi ayaa haweenka umulisooyinka ku boorisay in loo baahan yahay in haweenka Soomaaliland sida ugu habboon ay ugu shaqeeyaan iyadoo sheegtay markasta ay ku dadaalaan inay badbaadiyaan hooyooyinka waqtiga ay umulayaan. marwada koowaad ee madaxweynaha Soomaaliland Marwo Aamina Waris oo iyaduna ka hadashay goobtaasi ayaa ku dheeratay sida loogu baahan yahay in umulisooyinka 32 kan qalijibiyay ay la yimaadaan karti iyo faa'iidooyin mid dhal ah. waxay qabsan karay ama qabsanayna marxaladoodu weeyaan kulli waa ka wada qabtaan dawladda ka dambayso halkay tii hore kaga tagtay inay ka sii horumarayso way halkay ku jiraan oo ka dhashay. wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Nimco Xuseen Qowdhan ayaa iyaduna hambalyo u soo jeedisay 32 kan arday ee dhameystay culumta caafimaadka iyadoo sheegtay in wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ay soo dhaweyn doonto. gabagabadii waxaa marwada koowaad ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ay shahaadooyin guddoonsiisay ardaydii dhameysatay halka sano umulisooyinka. iyadoo ay biyalaan ka jirto qaar ka mid ah deegaanada Soomaaliland iyo waxa magaalada Hargeysa hawlgallo biyo dhaamise ka bilaabay hay'adda samafalka ee Geeska Afrika taasoo biyo u qaybisay qaar ka mid ah dadka danyarta ee ku dhaqan xaafadda Maxamed Mooge. faahfaahinta warkaasi waa kan wariyahayaga Xamse Cali Bulbul. biyuhu waa nolosha aadamaha ku nool yahay inta badan quraanka iyo xadiista nabigeena suuban waxa si weyn loogu soo celceliyay qiimaha biyuhu ay leeyihiin. qaar ka mid ah deegaanada Soomaaliland waqtigan xaadirka waxa ka jirta abaar baan taasoo saameysay dad iyo dunyaba. hay'adda samafalka ee Geeska Afrika ayaa maalintii shalay waxay bilowday hawlgallo biyo dhaamis kaas oo ku hadan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa siiba kuwa dadka danyarta ay degan yihiin. maanta ayaa markale hay'adaasi waxay biyo dhaamis u sameysay dadka degan xaafadda Maxamuud Mooge oo kuwa danyarta ah. gudoomiyaha Geeska Afrika Sheekh Maxamed Cali Geedi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in hay'adiisi si weyn ay ugu dadaali doonto inay biyo dhaamis u sameyso. haddaanu nahay hay'adda samafalka ee Geeska Afrika haako ee ka shaqeysa Soomaaliland iyo ka shaqeysa waxaan ugu baaqaynaa dadka dibadaha jooga ee walaaladeyna wixii aad taraysaan walaaladeen waa aragtaan dhibta haysata ninkii wax soo dirayo xisaabaanu ku leenay ayaanu ku leenay mustaqbal baanu ku leenay daabshiil baanu ku leenay waxaanu idinka codsanaynaa in ay soo gaarsiisaan walaaladeen mucaawino iyo kaalmada soo gaarsiisaan annaguna insha Allah waa gaarsiinaynaa tan maanta aanu qaybinaynaa dad muslimiina oo carab ah ayaa soo bixiyay ilaahay ka abaal mariyo idinkoo uga sii dhowina waxa la idinka rabaa in aad u damqataan walaaladeen
inaad u damqataan ayaa loo baahan yahay qof waliba wuxuu heli karay inuu u soo diro dhibtaayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala in haysatana waxa loo baahan yahay ilaahayna inaynu soo noqono toobad keeno innaguna isu naxariisano ummad ahaan shicib ahaan iyo dawlad ahaanna inaynu culays ka saarno inaynu dhibtan ka baxno inagu soo noqonaysa sanad walba inagu soo noqonaysa jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan dalkaasi UK ayaa deeq lacag soo gaarsiiyay gudida horumarinta wadooyinka ee gobolada Awdal iyo Salal faafahinta warkaasi waxa magaalada Boorama nooga soo diray wariyahayaga Cabdullaahi Ali Yuusuf مسؤولين سرسرة أو كترسن هيدا هرمرين تودوين كقبلة أوضل يسأل أسردا أيام ما أنت مهنق بلادن وسوتشي ديا هوين كجالية درس سوماليلان UK كواسي أو سو غارسيا دغل عقد أو وددا هرمرين تدا وحوين كتريسا تلفزيون كهون كيبل تي في أو ما أنت بوقد حفيز كهيدا أسردا أيا وحا قدوميا هيدا سي بروفيسور حسن علي عثمان وشيء أهمية داي ولاد هاي لعتن سو غادي gabdhaha reer Soomaaliland ee UK degan oo hormuud ka tahay Farduuso Xasan Ciiga Xasan waxa naga soo gaaray lacag dhan marka la isku daro lacagta gabdhaha naga soo gaaray reer Soomaaliland ee UK degan waa $785 waxaan leenahay Ilaahay idin barakeeyo Ilaahay meesha ka soo saarteena meel ka khayr badan idin geliyo miisaanka xasanaadkiina ku daro waxaan baa u jeedinayaa dhammaan in Allah inta jecel ee qalbiga ku haysa الضميرك عفمات كقبتله إنه جد كان سيدا ماذا رجينيا إنه جعان كجيستان وجه قلبات وهذا الصعدة وبلامي ووجه رنتي وضك مدشان أيها وحق جوكاها سعيدة شيخ علم كميدا جالية رئيس سوماليلان UK وحنا كهالي أبو بكر شينادير فايسا شيخ سعيد يا سينب حاجي ميسان مرلبات حن حتى الله عليه وسلم جالية UK سوماليلان خاصة دمر كودا ويسحل قامي وقرتي إني دلكودي إنتي كبحان بربوبا أي سيس جود سوماليلان أي وجود تبرعان وحنا ما نهم اليوم دريا هواك مركز سلقارك إسكح القامي تبرعات كسو بحية إن أي مركز سيد دالان ويكون دالان سيد مركز صدقات كودا ودي لحيان وحن تريا ولكن فريق الدريا دليوغ رئيس سوماليلان إتجرا أمريكا أستراليا هولندا دنمارك جيرماني سويدن بلجيم حقي مرن waxa la wada tabarucaada oo ka hayna inta badan ma jirtee waxa la iyagana waanu sugaynaa Cabdullaahi Ali Yuusuf Hon Cable TV Boorama daawalintaas waxay noogu dhamaaday qaar kamid ah warkaan idin hayno wararkayga dhameystirna waxa daawan doontaan warka xigaadee beedado inta ka horeysa anigoo Maxamed Kuraasa waxaan idinka tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh